dhalinyaro adinkoo kale ah oo hooyo iyo aabe ay soo barbaariyeen oo ay juhdi badan iyo soo geliyeen dhalmada hooyanimo iyo midka aabanimo ka sokow in maalgelin badan la soo geliyo wax la soo bariyo la soo barbaariyay ayaa la yiri dalkiina ayaad muxuu wax u noqonaysaan ciidan aan noqonaysaan dalka difaaciisaan qaar waxaa la yiri fursad la'aan iyo baagamuunde shaqo la'aan ay idin haysa shaqan idin geynayna waa la qaaday waa la xaabiyay Eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waa lagu handay waxa ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara waa la xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaro oo intaan mageen ka baxayn la qalday xaqana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaam kartaa wax kale oo aniga ku tilmaam ma qaan dhalinyaradaas waa la iibsaday Eritrea la geeyay war iyo wacaal wax u haya male war soo duulay oo xaq ka soo duulay oo waa dhinteen oo Aksum ay ka dagaalameen oo xaqay tageen Makala lagu laayay iyo xaqay dhaceen iyo muxuu buuraha ay ka daateen oo qaran muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano dawladii dhalinyaradii qaaday hal maalin inta dadka soo hor istaagaan dhalinyarada laga hadlayo xaalkoodu waa sidaan ma ayan dhihin ilaa wali ma aqbalin Eritrea dhalinyaro u dirna xataa wali ma aqbalin iska daa Eritrea dhexdeeda waxay kula sugan yihiin sidaas mas'uuliyad ma aha sidaas dadnimo ma aha waxa la qarinaya waa maxay wax si qalad loo sameeyaa la qarinaya waa mid aan leeyahay dhalinyarada waa la iibsaday ninna kuma dhaco inuu idaacad soo istaagay dhalinyarada aan iibsanay halkaas ay ku dambeeyeen kuma dhaco waxaan leeyahay dawladda iyo ragga siyaasiyiinta ah kuwa hadda jooga iyo kuwa berigi dhalinyaradu ay bixis xilalka hay laakiin hadda aan xilka haynin intaba mas'uuliyada ka saaran waa inay sheegaan dhalinyaradaas xaalkooda sababtay u baxeen iyo tiradoodii iyo meeshay aadeen iyo maanta waxay ku sugan yihiin waa in la sheegaa hooyooyinka dariiqa taagan maalin walba ooynayahay xaqay leeyihiin